Kulankan oo looga tashanaya dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayay Muqdisho ku yeesheen isimada, culummada, ganacsatada, hal-doorada raadinta nabadda iyo dib u heshiisiinta ee Cuqaasha iyo xubnaha beesha baadicadda waxa ay kulankooda ay sidoo kale kaga hadlayeen u doodidda xuquuqda kaga maqan dhinaca dowlad goboleedka Hirshabelle. Tanaasulaad iyo nabad jacayl ayay beesha baadicadde ay sheegeen inay uga maqan tahay laba xildhibaan. Isla xisaabtan waa hadafka ay u leenahay ayay yiraahdeen Hirshabelle maadaama aynu ka mid nahay saamilada beeleed ee wax ka dhisay dowlad goboleedka Hirshabelle. Waxay sheegeen in muddada 4 sano ee gabaabsi tahay doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo waa hamiga iyo ujeedada aynu u leenahay. Sidoo kale baadigoobka magaalada Buulaburde inay caasimad u noqoto dowlad goboleedka Hirshabelle hore ayaa dikreyta madaxweyne ugu soo baxday balse laguma dhaqaaqin. Nabadoonnada halkaasi ka hadlayay Cuqaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa wada qaba in ay muhiim ay tahay in doorasho waqtigeeda ay dhacdo iyo in marka beesha baadicadde ay muujiso doorka ballaaran ay ku leedahay dowlad goboleedka Hirshabelle. waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnada iyo Cuqaasha beesha baadicadde oo arrinkaa ka hadlaya. beeshaan baadicadde waa beel weyn, waa beel nabad jecel, waa beel xaquuq ka maqan. waxay xaquuq nooga maqan tahay Hirshabelle, waxaa nooga maqan xaquuq. waa beeshii dhistay Hirshabelle oo dhabar adeegtay u sabartay. hadduu alla idmo waa beeshaan waxaa ka maqan xaquuq 2 xubnood. beeshaan xaquuq 2 xubnoodaa ka maqan. 8 xubnoodee lahayd 6 xubnoodee hadda ku joogaan. waxaan u sheegaa bahda Hirshabelle, bahda federaalka dhammaan in xaquuqda ka maqan beesha ay ku helaan si degdeg ah. idinkaan dhalinyaradii waxaa laydinka rabaa xaquuqda naga maqan si xalaal ah oo nadiif ah inaad nooga raadisaan. annagana garbihiinaa nahay, waa idiinla raadinaynaa, odayaalkiinaa nahay. adinkana si wanaagsan oo sharaf badan oo xalaal ah xaqii naga maqnaay inaan ku wada raadsanno. saasaan idinku guubalinaa, waana mahadsantihiin. beesha baadicadde waxaa ka maqan waxyaabo badan oo ay xaq u lahaayeen. kow ay ka mid tahay caasimadda oo ku qoran dikreetana ku soo baxday inay Buulaburde noqoto caasimadda Hirshabelle. taa weli ma dhicin. dadaa si kale loo heshiiyey heshiis aan constitutional ahayn. taana ma soconayso. waa in lagu dadaalaa, beesha baadicadde ku dadaashaa si Buulaburde caasimaddii Hirshabelle ugu soo celinayna xaq u lahayd. Naciime Cismaan Geesay waxa ay ka mid tahay haweenka ka soo qayb galay kulankan beesha baadicadde ee Muqdisho ay ku yeesheen. waxa iyaduna ay tilmaamaysaa sida ay muhiimka u tahay in beeshu ay hesho xuquuqaadkeeda. xaqi aan ku lahaynay ilaa hadeer ma aanan helin. 4 sano waxaan u joognaa maan u aamusnayna waxay ahayd Hirshabelle yaa lagu kala tagin. waxaan intaas ka warsugaynayna inay ummadda Hirshabelle ay garato xaqa ay ku leedahay beesha baadicaddo ee maamul goboleedka Hirshabelle. waxaan nahay qoomiyad aad u weyn degta gobolka. dad aan ku lahayn deegaan ama ka dega hal degmo aa xaquuqdoodii ka helay. annaga oo 99% ka degno oo canshuurta laga qaaday aan ognahay inaan maanta xaqeenni ku weyno oo caasimadii aan weyno oo xildhibaanadii aan ku lahayn iyo asaan qaybsiga aan ku lahayn aan ka weyno muddo 4 sano. kulankaasi ayaa waxaa laga soo saaray war murtiyadeed ka koobnaa dhowr qodob waxaana warbaahinta u akhriyay Cabdiraxmaan Cali. maanta ay taariikhdu tahay 20 bisha Agoosto 2020 magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay shir looga tashanayo dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. shirkan waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashada Hirshabelle oo muddo yar ka harsan tahay iyo xaaladaha guud ee siyaasadda. beesha baadicadde markii ay aragtay xilliga kala guurka loona baahan yahay diyaar garowga dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay soo saartay baaqan soo socda. kow beesha baadicadde waxay ku baaqaysaa in doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle ku qabsoonto waqtigeeda sida ku cad dastuurka oo qeexayo 4 sanaba in mar la qabto doorasho. 2 beesha baadicadde waxa ay soo jeedinaysaa in la dhaqangeliyo dastuurka lana dhammaystiro tirada xildhibaanada ka maqan beesha oo kaalin weyn ku lahayd dhismaha dowlad goboleedka Hirshabelle. 3 beesha baadicadde waxa ay ugu baaqaysaa in la qabto dib u heshiisiin dhaba taasoo muhiim u ah
dib u dhiska dowlad goboleedka hirshabeelle. 4 beeshu waxa ay xasuusinaysaa saamileyda in caasimada hirshabeelle buulo buurta ay ka soo baxday dikrooto madaxweyne bishii December 2015 iyadoo beesha tixgelinayso in la helo maamul loo dhan yahay. waxa ay beeshu muujisay mas'uuliyad weyn in la helo maamul goboleed rasmi ah hase yeeshee lama dhaqan gelin heshiisyo muhiim ah oo dastuur ku qoran. ugu dambeyn beesha baadacadu waxay ugu baaqaysaa beelaha hirshabeelle in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka si loo gaaro horumar waara oo dan u ah bulshada lagana fogaado wax walba oo keeni kara dib u dhac iyo xasilooni daro. xasan salaad xasan laki raadi ay telefishinka dalsan muqdisho.